السلام عليكم سود وهذا أصابتكم channel كيكي سوم كل سود وهذا مقال كنا مانتا بس أنت أين بلا مقال كنا فضلك هذا وصلت سبسكرايب دقن بلال كنا فولو qaybta 86 oo habeenka Khamiista ah la soo dhigi doono ayaa ah mid saameyn weyn ku reebtay Turguut xaaladda gabadha Mary oo ahayd ayaa ka dartay kadib markii weerar loo qaaday halka ay ka degneyd reerkaya oo la isku dayay in la qaarijiyo sun markaasi khatarteeda wadata la siiyay oo loogu talagalay iyada iyo ubadka ay oloosha ku sido oo la rabay in dunida lagu dhaafiyo kiiskaas waxa la soo dhaxmarsiiyay ninkii Gunduz Bay ahaa baaritaan far badan oo la sameeyay sida ka muuqata gooska labaad xalqada 86aad waxa soo baxday baaritaanka uu sameeyay baari walaalkeed Koses in sultaas asalkeedba ay ka soo baxday halka uu degan yahay qabiilka reerkaya Gunduz Bay waana mid keentay in eedeymaha dhan dusha laga saaro Gunduz Bay sheekada waxa ay ahayd mid aad u culus kiiskan wuxuu ahaa mid hogaamiye Usmaan Dabiiqadii ka soo gaaray oo halkaas dhiig badan ku daadan lahaa